بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضي وسلامتين ومعد العتيق سودو هذا ما أنت هل كان وحنو كجلينا درس عصب وعنوانك سوية هي ذانك وأمثلتها ذانك يتصال يا شيخ درسي هراء نصور الماضي وتلك أيهات لحدي 10 كقاضي لهم وأنو كقاضني وإنه دماتي ذانك ayaanu galnay oo macnaheedu tahay labadaas oo laba iska leh dhadig iska ma lahan maxaanu soo qaadanay daaka oo dhadig lagu tilmaamayay tilka afwan daaka oo lab lagu tilmaamayay daaka oo lab lagu tilmaamayay tilka oo dhadig lagu tilmaamayay haddana waxaanu galnay dhaanika oo laba lab lagu tilmaamayo laba lab ama laba dhaban baa loo yaqaan Soomaa kisi iyo dhaban baan lahayn ama dhaban lagu tilmaamayo laba he dhaban lagu tilmaamayo laba nin ama laba bir ama laba geed waxay doontaa aata sida tusaalayaasha baad ku arki doontaan laba nin uu lama tilmaamayo mar walba marka waa laba lab ah ayaan leenahay laba lab ah oo la tilmaamayo ayaanu hadda galeynaa dhaanika macnaheedu waa labadaas hagaag casharkan hore ka galeynaa marka dhaanika fatilaani alqumbula labadaas waa gaanjooyin ذانك فتيلان القنبلة لبداس هو جانجوين جانجو وحال هذا أفك صومالية بمبضة واتقانا صومها جعنت لقطورو بمبضة جعنت لقطورو من نوع مينو أردولك لقو آسا أما مركز هالنقطة مدي محوها تنجيدة أما نوعيدة كلاك لنقطة مدنا وحاوي جعنت لقطورة أو لقودي كالتما يقفك قاعته taas ayaa waxa la yiraahdaa birta laga siibo birta ayada ammaanka u ah ee markii la siibo miinaduna ay qarxayso intaan la siibin ka horna miinadu ay ammaan qabtaan bombada aan dhahayaana miina ku dhihin afwan bombadu ay ammaanka qabto ayaa waxa la yiraahdaa gaanjo maxaa la yiraahdaa gaanjo ayaa la yiraahdaa bir yaro ayadu ay leedahay hadii laga bixiyana bombadu ay qarxayso hadaan laga bixinna waligeed meesha ayada ay isku ooliso ayadoona qarxin sida ogaada dhaanika fahmaani labadaasi waa dhuxulo dhaanika fahmaani labadaas waa dhuxusha ahayd weey oo laba dhuxulood baa marka tilmaamnay dhaanika qirdani labadaas waa daanyeero dhaanika qirdani labadaas waa daanyeero waa laba daanyeer dhaanika qunfudani labadaas waa kuulay ama xidig dhuleed dad baa u yaqaana dad reer xamarku wuxuu yaqaanaan kuulay cali banjar marka cali banjarta waxa iska reebo kuulay dad baa u yaqaana dadina waxay u yaqaanaan xidig dhuleed oo baadiyaha marka tagtid xidig dhuleed baa loo yaqaanaaba hagaag waa bahal yar sida caana qubta oo kale ay qodxa leedahay qofkii caana qub yaqaan hagaag magaalooyinka laga helaa baadiyahana waa laga helaa dhaanika qumaashani labadaas waa maryo ama dhar dhaanika qumaashani labadaas waa maryo ama dhar dhaanika qadaxani labadaas waa koobab argalaano waad dhihi kartaa argalaano koobka aad ku u weyn argalaan baa la yiraahdaa afka Soomaaliga sooma argalaan baa la yiraahdaa hagaag dhaanika qadaxani labadaas waa koobab ama argalaano qadax marka qadxun markii lagu leeyahay waa weelku markuu maran yahay weey ka'sun markii lagu yiraahdana waa weelku marka uu buuxo ama shaaxa ku jiro ama biyaha kugu jiraan ama caanaha kugu jiraan marba galaasku ama argalaanku haduu buuxo wixii ku jiraaba ku jiraan ka'si baa la yiraahdaa haduu maran yahayna qadaxun baa la yiraahdaa sida ugu dhaanika quflaani labadaas waa qafilo dhaanika quflaani labadaas waa qafullo qafulka hawey albaabada lagu xiranay dhaanika qaadibani labadaas waa laashiyo dhaanika qaadibani labadaas waa laashiyo laash ayaa afka Soomaaliga lagu yiraahdaa ama doonta yaryar ee badda liida taala ee dadku intay raacaan wax yar badda intay ku soo dhexmaraan lacag yar intay dhiibaan ku soo laabanayaan doonta noocaas ayaa waxa loo yaqaanaa afka Soomaaliga laash afka Carabigana tathniyada iska jir alifu tathniya markaad iska jirto maxay noqonaysaa qaaribun mufradki eragaad helaysaa hadaad alifu tathniyadu ku darsato alifka iyo nuunka ahna qaaribani ayay ku noqonaysaa dhaanika qidraani labadaas waa digsiyo ama dhariyo dhaanika qidraani labadaas waa digsiyo ama dhariyo dhariga ama digsiga waxa artay dhari ama digsi baa loo yaqaan waa digsiga cuntada lagu karsanay laga yaabo maanta inaad qado ku karsato ama ba laga yaabo haatan inuu casho dabka kugu saaran yahay ama ba aad casho ku soo karsatay digsiga hawe marka
ديرنا والي هذا دكسينا والي هذا ذانك قصراني لبداس هو قصريو ذانك قصراني لبداس هو قصريو guryaha aadka u waaweyn aadka u qurxoon beeraha leh oo meelaha baabuurta lagu baakinta laho dhowrka dabaq ka kooban oo aseendooyinka laho albaabada waaweyn laho waardiyaha laho shaqaalaha badan oo aadka u qurux badan ayaa waxa la yiraahdaa qasrun qasriyo ayaa la yiraahdaa hagaag darsigu inta ku jaazakumullahu khayr ahsan Allahu ilaykum darsigan haduu hadda kugu horeeyay ee YouTube ku arkayso casharkan oo qoraal ah ama warqad ah ama PDF ah commentiga ugu horeeyay ee muuqaalkan ayaad ka helaysaa soo dhow dadka kalena gaarsi asxaabtaada gaarsi adaalu ala alkhayr ka faa'ilihi ayu nabiga sallallahu alayhi wasallam macad ku soo biir subscribe telegramka insha Allah soo dheh YouTube kana sidoo kale dheh waa macad al-atiq li ta'lim al-lugha al-arabiyya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh